الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعشركي تضبات هي كتاب كان حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله وها كميدا حكمتي شيخ سوغوريي وحلي هذا قفك رقن كيسو قفك أون نقض ومن كانت شيمته التوبة والاستغفار فقد هدي لأعظم الشيم أيها الشيخ قفك إلهي وكدق رقن كيسا إنه توبت كينو إنه استغفار يدن بداف الله ويديستو qofka ogaada waxaa lagu hanuuniyey ee dhaqankii ugu fiicnaa iyo akhlaaqdii ugu fiicnayd ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala qofkaas siiyey. macluumadaa sheekhu wuxuu ku sheegay kitaab la yidhaahdo igaathatu lahfaan fi masaa'idi shaytaan ama min masaa'idi shaytaan. labadaba haddaad raadisa waad ka helaysaa. fi iyo min xuruufta jaarna dee waa la kala ciwad baa loo kala qaataa, waa la kala bedeshaa, wax dhiba male. igaathatu lahfaan fi masaa'idi shaytaan ayuu sheekhu ku xusay macluumada. ayib, waxaa ka mid a waxyaabaha sheekhu noo soo guuriyey. wuxuu yihi almasaalix walkhayraat iyo kamaalaadka, maslaxada, khayrka, wanaagga, waxyaabaha naftu ku macaansato wanaagsan oo khayrka ah, waxaasoo dhan laa tunaalu ilaa bixadin min almashaqa. laguma gaadho kamaal iyo meel fiican laguma gaadho ilaa mashaqiya dhib baa ka sokeeya. lamana gudbi karo meeshaas iyadaa looma gudbi karo, khayrkaas uma gudbi kartid ilaa calaa jasrin min atacab. waxaa ka sokeeya deked ayaa ka sokaysa, buundo oo dhib abaad sii maraysaa. marka qofka u malaynaya, maxay odhan jireen soomaalidu, fadhi iyo fuud iyo cib miyuu ahaa? fuud iyo cib iyo fadhi waa laisku waayey, layskuma helo. marka qof uun wax lagaga soo dejiye dusha oo iska fadhiyaay ma jiro. dadka waxbartay ad aragtay waa uun dad dadaala, hadday tahay jaamacaadkii, hadday tahay fulaan professor, doctor hebel, sheekh hebel, waxaas dadkan waa dad rafaaday. dadka waxaan idhaha marba mithaal soo qaataa dhakhaatiirta ah. dhakhaatiirtu waa howl adag bay maraan. ha fiirina adiga hadda maradan cad ee ay qabaan, maaragtay shaatiga cad ee dhakhtarku uu qabo, in intuu meel un fadhiisto. ninba maalin dhoweyd baan dhakhtar u wada tagnay, waa wiil dhalinyaraa. markaasaa dhakhtarkii uu noo soo galay isagoo dee shaatiga iska labisan, halkaasoo kale kursi ku fadhiistay. laba kelimuuna weydiiyey, laba kelima dheg 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 waana iska baxay. markaasaa wuxuu yihi, adeer, ninkan hadda intaa yar buu lacag ku samaynayaa tiro badan. nacam, waa sax, lacag buu ku samaynayaa tiro badan, laakiin maxaa ka horreeyey? shaatigan cad hadda adiga u jeedo eed moodeysa ninkan inuu xaragoonayo. wuu dhafray, wuu soo jeeday, wuu rafaaday. jaamacad buu 7 sano ku jiray, intaasoo haddana sii maray, takhasusaad kala duwan buu sii maray. naftii baa soo qabatay, imtixaanaad aan laga gudbi karin. 8 saacadood hal imtixaan oo loo fadhiyaa ku jira. nimanka dhakhaatiirta ay soo bartaa 8 saacadood hal imtixaan oo loo fadhinayo, oo laguna diyaariyo dhowr biloodna lasoo diyaarinayo. marka almuhim, waxaan rabaa inaan idhaahdo dhibaatada qofkii rabaa inaad hurdo iyo dee maaragtay reereyn iyo raaxo raaxo, waxaan mashaqa haddaadan soo marin gaari maysid, meel fiican gaari maysid. ayib, macluumadaas sheekhu wuxuu ku sheegay kitaabkiisii miftaaxu daari sacaada ayuu ku xusay. waxaa jira macluumo kale oo isagana uu ku magacaabo. sheekhu yidhi ashaytaan, shaytaanku dadka wuxuu ugu guulaystaa xaguu sideedaba ka soo galaa. yani waxaa jira madaakhilu shaytaan, horey baan uga soo hadalay, mar baan ka hadalay, ilaa dhowr iyo 10 ahaa baan kasoo sheekaynay, dad xusuusataan dadkii kitaabka kutubtii hore la socday. waxaa kamid a shaytaanku wuxuu kasoo galaa dadka 2 meeloodba ugu waaweyn buu yihi sheekhu. midi waa inuu kasoo galo cadhada. qofku markuu cadhoodo, shaytaanku wuu ku dadaalayaa, karkaarku weydaarin. waa adiga arkay intuu ninku cadhoodo xanaaqo qori qaata buu dad dilayaa. waa shaytaankiibaa kuu dhiibay. waxaa kaloo shaytaanku kasoo gala ashahwa. shahwadana wuu kasoo gala meelaha dadka ka ugaadhsado. waxaa kamid ah shahwadii, qofkii shahwadii hadday qabato dadkii qaar baan is celin karaynin oo xumaantii hore ka gelaya.
marka shahwadana wuu uga yimaadaa, cadhadana wuu uga yimaadaa. waana labada ugu badan oo dadka ka ugaadhsada weeyaan. kitaabku wuxuu ku sheegay sheekhu macluumada kitaabkiisii madaarij saalikiin ayuu ku shugay, madaarij asaalikiin في بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. طيب وعكلوا شيخ كهالي معلومة هذا عجبنا ويلي كن في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر. بروفير سيريكاس وحول أذيك مرول با حلقاهلو دنك الله إيا الرسول كجيران. قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. يعني حاجة دينتا مرول با هذي ربان دادكو أردن هكو قرم مران ميلكال دادكي با مثلا وحبا لسكو قبصدي تصالي مثلا لسكو قبصدي دادكي أردن دينع كالي ودا آدين لكن آيات دي حديث كي با دينع مرأي أدو دينع أيضا لغاهلو مركب مرول بدينتي إلهي لغاهلو أو كود جنو أو دينع مر جانب كربي أي جانب كبشر إيا دينع أو بدينهين وحبها الرادسنين. إلهي سبحانه وتعالى هنا حفظيه ربنا الثبات في الدين الله الله ينسيه قول كيني فعل كينن الله يسوافجيه الله هي نور دوره. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.